السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي قالقا وعد السلامي مركله يا موقال كله دورنimo wanaagsan ama casrinimo wanaagsan aad la soo dhawaada. waxaan idin rajeynayaa meel badani daafeed ka joogtaan farxad bashbashi barwaaqo caafimaad taamo oo dhiiga dhimirka gala oo xanuunka tagin intii xanuunsan ilaahay caafimaadka wanaagsan ha siiyo xanuunka dabeelaha ka raaciyo intii caafimaad qabtana ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaadka ha u siyaadiyo intii dhimatay qabriyadu ilaahay waa siciiro duniyada janna Allah uga dhigo anaga ilaahay gadaashooda nama fidneeyo maanta waxaan noo wadaa insha Allah بقصة سورة البقرة هي ألاف آد وهلي دونتان بإذن الله الكريم سرفيه يقول حديثة بإذن الله سودو هذا مع المهان ده قصص كلية شاكلوا ماهن ويسبد الشيء ما شاء الله إلهي بماركتين هذا أصلا يوصقناتي قصة الأوهر مرايا قصة مكان ودم يهدو الله قدره ألاف آد وعجيبة آد كهلي دونتان أياني وذات السياح سودو هذا قصة وسورة البقرة وحكى شيكين مليونير أو ذلك السعودي قول شيء أي قصة كشيكي نين كان وحول هاي مركن كلها قصة سورة البقرة فإذا أذفر بدن أي نوع هذا هاي يرجل أذفر بدن وينون قنيسة نوال بق حافمات هديت هاي أقالة هديت هاي شدر قوطوس هديت هاي جناحسي حقيس هديت هاي وحول بق أو قصة بسنة لشينا أي يرجل نقنيسة ninkan wuxuu dhahay anigoo arday ah oo jaamacadda dalka Mareykanka jaamacad ka dhiganayno ayaa sheekh wadankeena ka imaaday macnaha Sacuudiga ka imaaday ayaa noo imaaday sheekh markuu noo imaaday waxa dhaanay sheekhow bal wax uu nooga sheekay qiso maaragtay noodir daaran markaas wuxuu nooga sheekay qisadan suuratul baqara ah qiso suuratul baqara iyo macnaha wuxuu nooga sheekay faa'iidada ay leedahay suuratul baqara ayuu dhahay فإذا مركان أنا وشيك أنا مالين كاس كبرى رو سورة البقرة هراي ما نستعمل شرل مالين كاس أيام سورة البقرة بلاوي سبحان الله وهذا هاي مالين كاستا سورة البقرة وأنا أخرج شري بوده هاي رنهانتي وحيري وحان كهلي فإذا أن كهل سورة البقرة ما ملك تدور هاي شدول كي قدم آيات توصيو هاي جناع سيدي أيام كده حركي reerkayga iyo markaan reer sameysanaayay noloshu easy wax kasta easy bay noqdeen maanta markaan nin dhalinyaro ah tahay gabdho wadinka jaanis fiican yihiin de iyaga wax kasta iyaga loo habeeyaa laakiin ninka ragga markuu guri dhisanayo wax kasta inuu qabtaa laga rabaa mooho isnad easy ma ahan guri aad dhisaysid ciyaar ma ahan laakiin aniga wuxuu dhahaa wax walba wixii ii noqdeen oo dhahay easy الصبح يا بلابي شر معناها هبينك يا بلابي شر الصبح يا دمين شر ما كان ودن كسر نقضي ولا هاي ودلك السعودي أنا هذا مرة تجي عشاء صلاة عشاء وكله يا معناها صلاة الصبح وحوين ما أقول حيابا يعني ما أدري ما يصير بوقت كذا نسيك على وايد أنا هذا مرة كان أنا وحسي حجرني صلاة الصبح مكان دكان كدب عبار ساعة حجرني مقربة دكانة عشية وحسأل الدكانة إن يرى صلاة الليل عش صلاة وبي ما طوا صلاة مثل دكان كدي بعبارة سيحان شر مركا مدام ودنك أو وقتك أو كلا دوية هاي وحول هاي مركا هوسن كسور نقضي وحنا أخرج شري وده هاي مغرب كيا بلابي شري صبح إلى صلاة صبح أخرج شري إلا مركي ورا سورة البقرة لما جزء صدق جزء النوع لما جزء يبرواي قف مركو أخرج شري الأول وهذا بلابا ده ويكون عسلاني وحنا جارهير عن أخري الساعات يوحل بيد أن أقريه أو أيضا لما أنتان برت ما شاء الله أي نقطة كالفاتحة أو كله ما شاء الله نيدي فرحة دجنانتا بركة وحا أجاذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يودهاي أو أها أخذها بركة قفقات سورة البقرة وحيل يا بركة ذا كاس عادي بقوا أن وحول ويقين صلاة ويقين سنة وحن كلو يقين سنة يودهاي ما كان أخرناي iska akhri iyo iska hololoobi ma u aqrinaynin waa ku tadaburayay buu dhahay waxaan ogaay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu dhahay alif lam mim la aqulu harf ma dhahayo macnaha hal xaraf ma dhahayo nabi alif lam mim wa saddex xaraf oo xaraf kasta 10 ajar uu leeyahay waxaan xisaabsanayo dhahay oo macnaha aan qalbiga ku haystay xaraf walba 10 ajarna ku leeyahay سورة البقرة أخرين أنت اللي أكتها إمساح حرف واي
10 ajir ayaa lagugu dhufanayaa taas qalbigayga ku jirta waa yaqiinsanaya u dhahay maasha allah ilaahay subxaanahu watacaala irdaha khayrka ayuu ii furay ganacsigii aan haayay iyo wax alla wixii aan qabanayay ayaan ka arkudha barakadeeda qof walba iyo cid walba waxaa ku waaninayaa inay maanta aqristaan suuratulbaqara ay bilaabaan aysan ka tegin haddaad tahay qof reer dhisanaya ilaahay subxaanahu watacaala si iisiya ayuu noloshkaaga dhigay irdow kuu furaya haddaad tahay qof ganacsanaya ganacsigaaga ilaahay wuu barakeenayaa wuxuu kaaga dhigayaa wax sahlan oo sakhiran buu kaaga dhigayaa haddaad wax baranayso subxaan allah wax kasta oo isu kaa furayaan ayuu dhahay waxaa idinku waaninaa uu leeyahay dhalinyaro yar iyo weyn qofkaa doonta ahaaw rag iyo dumar inaad suuratulbaqara faa'iido ay leedahay marna aada ka tegin marna inaada ka tegin maxaa yeelay caafimaadkii waa kuu gooni barakadii waa kuu gooni ilaalintii iyo xijaabka ahayd waa kuu gooni oo suuratulbaqara qof aqrinaya balaayo mau imaanayso xasad iyo il iyo waxdan mau imaan karaan marka walaalahayga qaaliga ee aadka maaragta u quruxda badan waxaan idin leeyahay suuratulbaqara laasimta gabadha comment ii soo qortay waxay igu tiri 15 sano ayaan jiranahay mase 15 sano markaan jiray baan bilaabay inaan jir yacni 15 sano aan jiranahay 31 sano maanta jiraa il xasad il qaraabo waxyaaba noocaas ayaan ka cabanayaa ilaahay ummaddu waxay tir xanuunsan oo anigoo kala iyo anigaba allah subxaanahu watacaala hana caafiyo sax waaye ilaahay waa ku caafinaa biidnillahi alkariim haddaa yaqiin saxa la imaato suuratulbaqara aad barato aada akhrisato muhiimaddu maahan suuratulbaqara ma aqaano waa daad 2 aayad maalin kasta ka baranayso oo maalin walba aa kor usii kacayso 2 aayadaa shala barata 2 aayadaa maanta barata 2 kale maanta barata qofkii nus haaf qaadan kara nus beej qaadan kara qofkii beej qaadan kara maasha allah wax wanaagsan waaye gabar kale waxay tiri coday igu soo dawrtay ma u jawaab hadan rabaa inaan u jawaabo istighfaarta iyo dhikriga marka akhriyo in laga aqbalo sidoo ku ogaanaya horta haddii ilaahay waxaa rabta ku siiyey oo aad adiga waxaa ilaahay u dirsatay aa heshay in laga aqbalo waa dareemaysaa hadduu ilaahay kugu jideeyay wadada saxda ah oo meeshaa rabtay iyo wixii aa rabtay inaad samayso ilaahay kuu jideeyey oo aad qabatay oo ilaahay kuu fududeeyey in laga aqbalo waa dareemaysaa 3 nooc ducadaada ma dhaafayso haddii oo aad duceysato oo ilaahay aa barido inuu ilaahay ku siiyo oo degdeg si degdeg oo kugu keeno oo aa shaygaa rabtay waxaa aa hesho wa imaa inuu ilaah subxaanahu watacaala balaayo soo socoto kaaga dhigo oo kaaga celisho adigu ma ogide wa imaa inuu ilaahay maalina maanta aga baahi badan tahay oo meel kuu dhigo 3daas nooc ducadaada ma dhaafayso mana seereynayso marka haddaa ilaahay barido oo digri badan akhrisatay oo wixii kuu imaanin oo sidaa rabta wax u helin ha isdhihin baryadaada lagaama aqbalin baryadaada 3daa shay mid noqonaysaa inuu ilaahay dhibaato kaaga celshay inuu ilaahay meel kuu dhigay waa inuu ilaahay ku siiyo marka walaalahayga qaaliga ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu mar kastaba na waafajiyo akhrinta qur-aanka iyo isku boorinta xaqa soo dhawaada maanta waxaan idiin wadaa alaab aad iyo aad u qurux badan alaabtaasaan isla daawanaynaa in yar hadduu ilaahay qadaro soo dhawaada marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالي قالي الصود هذا عاو حادي وضع عجيب وحكله أو آد أقرح بدن أو آد وعرف بدن أيا إدين وضعنا هانتي هراين كوش شيء وحيابك لإني ماركتي قرسينهين أو صوبح الدونان وحيابي إدي شيء قيب كميض أيا هذا صوبح هذا ما شاء الله وحنا أتشيدان هذا جروها كوشدت عرفت لقى مبحاي جروها كالس كارك واللوبان سقطر اللوها جاشيي عطر lagu daray kaali iska arag udug iyo carafta ay leedahay iyo uunsi isku dhex jira waaye uunsiga gooni oo arki doontiin insha Allah haduu Allah idin ku dhex jiro kuwan laakiin hadda waxa inta lagu shubaayo waa maaragtay waa loobaantii saa u jeedaan ma sha Allah tabarakallah qofka hadda baashan shidanayaan ku dhahay qof ciyaar ama ahan gurigaaga marka u shidid baashaniito adaab la yaabi doonta carafteeda kaali iska arag halka catar iyo caraf gashay ma malay karti walaalahayga qaaliga wax qurxoon iyo wax carfoon iyo wax kaal iska arag in idin soo gudbisa u jecel ma ka hesheen ma sha Allah tabarakallah alaabahan hadda waa diyaar ayagana waa gadan kartiin oo soo dalban kartiin alaabta marka gadanaysiin ku darsan kartiin wax weyn oo dhibaato leh ma ahan ma sha Allah aad iyo aad u
waxu caraf badan waay run ahaantii kaaliska araga. Caraftana waa ogtiin meeshay joogto run ahaantii nolosheena eeba carafta ka joogto waa dareemi kartiin. Guriga markuu carfaayo ma maqashay lama kala qurux badnee qabeyskaa la kala badsado iyo nadaafadda iyo carafta weligaa ma maqashay maamaayada noocaasa. Baashaanayto gurigaa markaa ku shidid maasha allah 3 beri hal mid oo kamida markaa ku shidid 3 beri way kasoo carfi aan ku dhahay. Musqusha gudaha qolka meel walba iskaga shidaan ku dhahay. Haddana ma ahan sidii oo maaragtay uunsiga aadka u carafta badan oo ilmaha qaar neefta iyo waxaas qaba dhiba ma ahan. Hadda uunsiga waa kaas cadaadka oo ku jira meeshaas waa ka saaran. Marka maasha allah guriga marka laga maqan yahay oo kale marka ilmuhu maqan yihiin oo kale qolalka ilmaha guriga dhan waa ku shidi kartaa. Jeermiska iyo waxyaabahaas oo dhan aan ku dhahay maasha allah waa ka dhimanayaa. Haddana waxaan shidanaynaa qayb yar oo kamid ah uunsiga. Sidaas oo kale ayadana meesha u saaranaysa hal xaba ayada kugu filan. Meesha uunsiga dhar xaba aan ka saaray ayada hal xaba kugu filan. Halkaas mar xataa dhamaanayso carafteedana ma maleey karto maasha allah. Anaga hadda gurigeena waa lagu dhex sameeyay maalinta lagu sameeyaan ku dhahay gurigaas 7 beri 8 beri qol kastood gashtiiskiisa u soo udgaaya u soo carfaa. Kaaliska carafta meel kasta guriga kamid intay gaartay. Walaalahayga qaaliga soo dhawaada. wax badan oo wanaagsan idin la jecelahay. Carafta, quruxda, wanaaga, wax qabsiga, shaqaysiga, kaaliska aragan ku dhahay maasha allah. Marka gacantaada wax ku taqaanid ama wax ku baratid wallaahi ilaahay waa u mahadinaysaa maasha allah tabaarakallah. Waa arkaysid alaabta aadka u quruxda badan ifaad qalbi soo saartay saad u jeedaan. Alaabta waa la sameeyaa wax maanta oo bilow ah maahan ani asoo sameeyay oo ugu soo horeeyay ma ahan. Saas hadda aan u sameeyay oo kala loo sameeyaa magaalada Neway Taala. Laakiin de waxyaabaha aan gadaayo ganacsiga ay ka mid tahay. Alxamdulillah ayadana sida loo sameeyaan bartay sabab marka hore ma aqoonin. Aniga saas u gadan jiray si u qurux badan to kala rab badan u tawa u jeediin maasha allah. Nooc walba goonidiisa u carfaan ku dhahay kaaliska arag ilaa nooc mara la karshay marba catarkiisi wixiisa lagu daray kaaliska arag. Walaalahayga qaaliga maasha allah tabaarakallah. Waa xirfad aad iyo aad u cajiiba. qofkii waxyaabahan bartana gurigiisa isagoo joogo gacantiisa dhunkan doona hadduu ilaahay qadaro. ilaahay waxaan ka rajeynaa meel badri daafiyad ka joogno inuu naga dhigo gacantii koreyso mar walba. Carafta yaa salaam ma maleey kartid aan ku dhahay maasha allah. yaa ma maleey kartid aan hadda adinka inta sayna shida laakiin gurigeena si isku soo carfayaaba. Halka ay sitramka lagu soo karinay guriga dhanaan ku dhaso soo carfaa ma maleey kartid. Baashaanayto markaa karinaysid oo catarada ku daraysid haddii ilmo neef qaba kuu joogo haddii ilmo san ka xiran kuu joogo xilli uusan joogin oo kale ayaa sameyn kartaa maasha allah tabaarakallah. xilli uusan guryaha ay ka maqan yihiin guryaha ku shidi kartaa. marka cajiib jiddan waay ku soo dhawaada. qiimo macquula oo aad u cajiiba ayaa alaabahan la gadaa hadduu ilaahay qadaro wala waxyaabo kale noo socdaan. soo dhawaada. assalaamu calaykum. maasha allah alaabtaas aad u jeedaan oo aad ku cajiibka ah ayaa soo kordhinay waxaan u tusaynay waxyaabo kale oo maasha allah tinta iyo madaxa quseeyaan waa soo socdaan hadduu ilaahay qadaro. marka walaalahayga qaaliga fadhiga ha laga kaco alaabta la soo dalbado. qofka shaqaysanaya maarta wax qabsanaa ha ka kaco fadhiga. caraftana maasha allah tabaarakallah aad iyo aad ay u fiican tahay ogtihiin nolosheena run ahaantii caraf la'aan dhibaato waaye. hore ma u maqashay mahayadan kuu sheegay run ahaantii waa sax waa mahaya ay dadka Soomaalidu dhahaan lama kala qurux badnee qabayska iyo nadaafadda iyo carafta ayaa maaragtay la kala badsadaa maasha allah ma fahanteen. marka aad ay muhiim u tahay inaan waxyaabahaas aad ku xasaasiga ah ee guryaheena aadka ugu wanaagsan weliba waxaan noo soo wadaa kala carfisaas duu ilaahay qadaro oo daahyada maaragtay roogaga bustaha aad ku shuban karto maasha allah tabaarakallah. qof walbaahu adduunyo waxaa la yiri fil basar aqil fil amal la dhaha ma fahanteen. meelaad joogto ka maqnaaw ama joog ama ka muuq ama ka maqnaa ma maqashee. marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga qof walba oo maanta guri jooga oo maanta ilmo haysto oo maanta rab inuu wax soo kordhiyo yacni horta waxaa muhiim ah inaad marka hore qarash geliso oo xirfad baratid waa muhiim jiddan. marka labaad inaad qofnimadaada sharaftaada iyo qiimahaaga kor noqonayo maalintaad gacantaada aduu wax ku sameeydo oo gacantaada waxa ku sameeyo ka soo galaan sharaf iyo qiimo shala aad leeyahay baa yeelanaysaa.
marka maasha allah qof oo maskaxiyan xor u ah oo gacantiisa xor tahay oo maanta wuxuu doono sameyn kara oo subxaan allah waalidkiisa iyo maanta aan ciduna hor istaageen baa noqonaysaa marka walaalayga qaaliga waxaa idin leeyahay dhiirgelin ha idin noqoto insha allah lambarkan hadduu alla idin commentiga ka heli doontaan qofkii soo wacaya qofkii la soo xiriiraya qofkii wax raba intaba diyaar baanu ah hadduu ilaahay qadaro alaabahaas aadka quruxda badan iyo kuwan hadda aad arkaysaan iyo kuwa ka dambeeya intaba biidnillahi alkariim online-ka waa lagu gadayaa qofkii caadina oo maaragtay socdana waa laga gadayaa soo dhawaada qiimo aad u macquula ku raali gelinaya maanta aan kaa nixinaynin adoo gurigaaga joogo aad gadan karto oo maanta adun cid wax weyn aan soo raadsan aad gadan kartid waayo macquul ah soo dhawaada marka doornimo wanaagsan leeshaad commentiga waa xaggiina fikrada quruxda badanna waa xaggiina maanta wax bilowdo ama maanta wax qabato ama maalintaa isku daydo inaad dhaqaaq sameyso caqabado fara badan ayaa jira biidnillahi alkariim video waa ka sameyn doonaa caqabadahaas sida uga hortagi lahayn sidaan maaragtay caqabadu uga gudbi lahayn qof walba oo maanta horumar gaaray qof walba oo meel tegay maantuu bilaabay dharrag hore ma u soconin waddo dheer oo dhalooyin ku jajaban yihiin oo qodxo yaalaan ayaa la rabaa inaad ka tallaabsato oo macnaha aad yacni ka gudubto ayaa la rabaa bili-aadanka kuwa dadka kuugu dhow ayaa qodxahaas iyo dhalooyinkaas kugu noqonaya kuwa kale oo horumarkaaga rabin oo niyadjab ku haayo oo waxay kaa dimacsiin aadan fahmeyn kuwaas warkood iska wadaa laakiin kuwa dadkuugu dhow ayaa kugu noqon kara caqabad ama niyadjab kugu noqon kara waddo dheer oo la rabo inaad falatid oo adig ka tallaabsatid kana gudubtid la rabo ayaa ku hortaalo qof walba taas ha ogaado video ka sameyn doonaa biidnillahi alkariim soo dhawaada galabnimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu